الله الرحمن الرحيم إلهي أبشرتها أنا وافجيو waxaan ku diraa marxalada maanta aan ku suganahay iditiilo alcaadi ahayn oo fiican aniga qalubteeda soo gashay iyo farxad alcaadi ahayn waa garta waxaa kamid ah numberka ugu horeeya prime ministerka waa la magacaabay waxaa magacaabay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka magacaabay waa garta waa la soo kaxeeyey golihii baarlamaanka oo bariyahan baa iska jeclaa siday u dhaqmay u shaqeynayaan waa la hor keenay waa garta si fuliya oo aan shakilayn ay ku baaskareeyeen waxyaabaha taageersanay ka mid tahay waa garta oon aada u soo dhaweynayo golihii wasiirada markii uu magacaabay haddana wuxuu u celiyey baarlamaanka uu hordhigay haddana waa garta si aqlibaday u ansixiyeen shacabka soomaaliyeed aad iyo aad ay u farxeen waxa maanta ka dhacay baarlamaanka ay kuna soo dhaweynayaan dawladda jirta madaxweyne farmaajo iyo xas iyo ninka la yidhaahdo prime ministerka ninka la yidhahdo roble iyo guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka sida ay xilkasnimada leh u muujiyeen waya marka Bashiir Raage ra'iisul wasaare waa la magacaabi jiray baarlamaan inta la horgeeyay cod kalsooni ah siin jiray waliba tiradii ra'iisul wasaare Robles in ka badan khayreysiyeen golo wasiirada inta la horgeeyay bay cod siin jireen maxaa weeye didiilada iyo farxadda iyo qalbi wanaaga ka duwan kuwii hore ee aad maanta muujinayso waxaa ka duwan farxadda aan maanta marayno oo ah anagoo soo daalnay oo waqti oo bataqaana cajiiba lagu jiro iyo sida ay lagu gunaanadayaan nala ficlaata oo khilaafka lahayn waa garta waxaa marka soo hartay oo codsigaygu yahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ka rajaynayaa inay si gacmo furana oo walaalnimo leh oo fiicnaan leh ay ku soo dhaweeyaan oo shaqeeyaan ra'iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisa waxaa u harsan 100 maalmood oo maalmo yar la jiraan 100kaas maalmood iyo xaaladda waddanka oo ah mid adag oo waqti kala guur ah lagu jiro maxaa is leedahay way qaban karaan isaga xukuumaddiisa 100kaas maalmood waxay u baahan yihiin wada shaqaynta shacabka ay u baahan yihiin inay ka helaan ku rajo weynahay maxaa ugu waaweyn oo aad leedahay muddada kooban oo aad haysataan meelo kale ku mashquuline 1 iyo 2 xoog saara waxay saarayaan xooga wax kasta oo fiicnaan oo shacabku dareehayaan maxaa kula haboon adiga see u kala dooran lahayd maxaa kugu muhiimsan oo aad dhihi lahayd isdul taaga ama waqtigiina ugu badan geliya waxaa kala hormarayna amniga cadaaladda eexla-aanta dadka oo simaan ay ka dhigaan unity Soomaaliya ay ka dhigaan siday u shaqeeyaan ilaah wax ka dhigan laga qaabkay u shaqeeyaan inay soo suurataan rabaa marka intaasba mislaada waa lagu qaban karaa 100 cisho hadday helaan garab waa lagu qaban karaa weliba shacabku waxaan kuu sheegaa intaas kale ku meeka hadday shacabku arkaan inay tiila muuqato iyakaaba dalbadoona in waqtiga loo kordhiyo iyaka iyo dawladooda iyo baarlamaanka waqti loo kordhiyo shacabkay ka imaanaysaa hadday laakiin sidii jidka hore meesha lagu socda ay maraan shacabku way iska diidi doonaa adiga ma qabtaa in waqtiga loo kordhiyo waqti loo kordhiyo iskama qabo waxaan qabaa laakiin ficilka ka imaan kara raggaan maanta yimid oo dhiigga cusub wata waxa ay qabtaan 100 beri waa lagu ogaan karaa waana soo baxaysaa ragga aan leedahay way cusub yihiin oo dhig cusub weeye yaa weeye madaxweynaha waa kii 4 sano dadkan ay soo arkeen oo bila ka harsan tahay golaha wasiirada waxay u badan yihiin raggii 3 sano iyo dharka iyo dheeraadka ah shaqeynayay agaasimayaasha waa isla kubi saraakiisha ciidanka waa isla kubi marka dhiigga cusub aad leedahay fursad hal la siiyo hal la tijaabiyaa way dhiigga cusub wuxuu ka baraa prime ministerka iyo madaxweynaha isfahansan iyo dadka oo Soomaalnimada jecel
iyo xildhibaanada xilkasnimada baryahan dambe banaanka soo dhigtay intaasay kaashanayaan. dadka Soomaaliyeed waxay ku jiraan xaalad adag, waxay marayaan dhibaatooyin muddo 30 sano oo sanad walba ay wiji cusub iyo meel cusub gaarayay. dawlad Soomaaliyeed way taageereen, waxay u dulqaateen in wadooyinkii laga xiro, waxay u dulqaateen in lacag bixiyaan, in xuquuqdooda oo maqan ay dawladda isgarab taagaan. intaaba wax waa ku waayeen. hadda marka aad leedahay ra'iisul wasaarahan hal barbar istaago hal la siiyo fursad idinka go'da inay dawladda sii shaqeyso iyo baarlamaanka, maxaa is leedahay intii hore loo soo barbar istaagay ama xoog iyo xolaba ay geliyeen shacabku waxna ka waayeen oo ka bedelan yahay? waxaan uga jeedaa waxaa la yiraahdaa hashi bil soota bil ku bedeli weyso. intaa ogeed way soo dulqaateen oo saas loogu balaayay loogu kurtumayay. intaa yartaa calooshooda ha furaano in ilaahay faraj khayr qaba furaa dhici karta ay u badan tahay saarey qiyaasayo. laakiin in calooshu ay dhaqato calool daahira oo Soomaalnimo ay u baahan tahay. intaas waa inta aan ku talinayo oo leeyahay way jirtaa kursiga nin kasta oo bataqaanaa mucaarada oo ama candidate wuxuu ku riyoonayaa ama uu rabaa inuu meesha tago. ilaahay baana cidda meesha tagaysa ama joogta. laakiin in dadku ay ku qancaan waxa la qabanayo waxa shacabka taabanaya ma yihiin mase waa waxaan taabanay in boqolkaa beri inaad tijaabahaas la galaan rabaa. nimankan maanta la keenay oo dhiigga cusubana inay boqolkaa beri ay ku xisaabtamaan waxa ay qabanayaan rabaa. haddii ay jidkii hore oo 3 sano bar ka bacdi faashilka kusoo dhamaaday ay maraana jidkii hore meeshay mareenay mari doonaan. haddii ay wax ka duwan keenaana shacabku wuu ka fiirsan doonaa, aad uga fiirsan. marka shacabku kursiga fadhiisan maayaan, hal ninaa fadhiisanaya, 30 ninaana kandideeda. nobody know qof og ma jirto cidda imaan doonta. laakiin shacabku waxay dareeyaan waryaa ummadda wax u qaban kara ama u qabanayo waa shacabku waxay dareeyaan. warkaaga waxaa ku jirta waliba dhowr jeer aad ku soo celcelisay waqtiga kooban ay la hadlayso. waxaan ku qanacsanahay sida ay maalmahan dambe u shaqeeyaan baarlamaanka. maxaa weeye waxa qurxoon ee aad ka dhaxalagtay fadhiyada baarlamaanka maalmahan? waxaas horaan u sheegay wiilkaygiyo waadna ogtahay baarlamaanka waxyaabaha naga badbaadiyeen ogtahay oo taabanaya diinteyda iyo nasabiyadeyda iyo ficlaanteyda wax ay naga badbaadiyeen oo dadka baktiga ay keeneen waad ogtahay ay laaleen oo xataa isku dili gaareen see loo keenay baarlamaanka waxa kan iyo bataqana in isku lay gaareen waxyaabaha lagu ilaabi karnay ka batahay. waxaana moodaa baarlamaanku inuu beriyahan dambe oo la soo baxay si niyad samiya oo kalsooniya oo shacbiyada ku kasbadeen. laakiin wax kale oo badan ay qaldeen baa jirta Soomaaliya oo qalada waaweyn ah oo dalka saameyn dhaqaale iyo mid amni iyo mid siyaasadeed ba geliyay ilaa haddana ka kaban lahayaa baa jirta Soomaaliya baarlamaanka sabab u hayeen. haddaan runta kuu sheego waxa ay khaldeen oo horu soo mareen waa minority wax yar waaye. waxa ay badbaadsheen caadi ahayd waxay badbaadsheen waa nasabiyadayna diinta ay badbaadsheen waaye. taas waaye mid aan ku ilaabi karin oo xataa u duceeyo adduunka aakhirada khayr Allah siiyo. tiina hadda ifalaa bariyahan ay muuqdana waa jidkii aan berdawad aan ku soo arkay oo ku hadlay ay ku dhaqmeen ama marka waa maasanta waa inta waa wax wanaagsan. way isbarbar taageen diinta oo ay tilmaameen xeerkii jinsiga inuu ka hor imaanay. laakiin ma ogtahay oo ma nala wadaagi kartaa hal iyo laba aad leedahay qalad weeye kumana taageersan baarlamaanka maadaama wixii aad ku taageersantaad noo sheegtay? may horaan uga hadalno data kuuri barnaamijkii wuxuu ku kooban yahay taageerista ansixinta maanta iyo ninka la yiraahdo Rooble iyo dawladdu inay u tafaxiitaan cadaalad ficlaan nijeclayslaan wax walbo fiican in 100 beri masahlan waa 3 bilood wax la jira way ka gaarsiin karaan in shacabku inta soo baxo banaan baxo ay yiraahdeen inaan iyaga ay mar rabno inay yiraahdeen way ka dhashan karaan.
intaa inay ka shaqeeyaan wasiiraage nin la yaqaano oo bulshada Soomaaliyeed aad ay uga dharagsanayay baa tahay waxa weeyaan ma aadan ahayn nin hadla oo warbaahinta ku badan sanadii ugu dambeeyay hadda caawana warkaaga waxaa ku jirta inaad ku qanacsan tahay dawladdan iyo sida u shaqeyso rabtana inay weli sii joogto maxaa weeye waxaan caawa ka hadal siinayo ee sidan ugu amaanayso dawlad dadkeedii in badan oo kamid ah tabasho ka qabaan waxaa iga halsiinaya mucaarad xumoo joogta oo cilmi ku dhisnay oo wax ka imaan doona aan loogeyn xabad ku fali baayo anigu waxaan rabaa ficil waxa oo dhacaya oo dadka iyo dalka manfacaya oo dadka iyo dalku iskula jiri karaan intaasaan rabaa wax kale ma rabo mucaaradka waxbay saxan mooye wax gaar ah hadday dhaliil ama dhibaato ay leeyihiin lagama sheegin laakiin qaladaadka dalka ka dhaca oo adiga iyo dad kale kula mid ay arki lahayn bay soo bandhigaan may anigu eedda waa ujeeda laakiin eedda la soo bandhigaya waa inay eed saxa tahay nuxur leh ay tahay oo la taaban karo laakiin eed aan meelay u jeedo iyo meelay ka jeeda aan la garanayn anigu shuqul ku mariyay anigu waxaa shuqul ku leeyahay shacabka masaakiinta oo dhiban in loo furo jid oy ku baraaraan ay ku ficlaan in loo furo muhiimadeedu ninkii roob waa nin cusub waa rajaynaa inuu hawshaas wax ka qabto roobla wixii ka horreeyay ma aaminsan tahay inay qaladaad jireen qaladaad waxaa jiray oo farfar ku fiiqa anigu ka jawaabi maayo farfar ku fiiq adaa ahay shuqul ku mariya anigu waxaan rabaa dadkan meel aan ognahay oon dhaweynaan kasoo bilownay oon la sheegi karin dadku iskuma darna marka waxaan rajaynaa hambalyaan leeyahay xildhibaanada oo hambalyaa dawladda oo hambalyaa roobla waa u hambalyaa executiveka boqolkaa biri ha shaqaystaano hawl fiicana dadka ha u qabtaano shacabku laba ubindaqana ama banaanka intuu soo baxay leeyahay kuwaa lagala bedeli karo ama waxay dhihi doonaan kuwa hore meeshay maraan marbe labadaas iska rabtaala waa mahadsantahay ragay ka shaqaynayna waa iyaka waa mahadsantahay su-aasha ugu dambayso dawladdan aad ka hadlayso oo aad wanaageeda tilmaamayso waxaa madaxweyne u ah maxamed cabdullaahi farmaajo wanaag kasta isaga door hoogan dhibaato kastana isaga hooyo aabbo u noqonaya maadaama madaxweynihii qaranka ee la doortay dadka matala yahay madaxweynaha Soomaaliya 3 sano iyo dheeraadka ay joogo waxaa la dhiibay qalbi dhagax waxaa la weeraray Barso Jawaari Cabdiraxmaan Shakuur la weeraray Cabdi Qeydida la weeraray gudoomiye gobolka Banaadir Taabida la weeraray 4 sano ku dhawaad dadkan go'doon bay ku jireen dad badan la dilay marka ma waxaad leedahay dadkan Soomaaliyeed ee dhibaatada wajahayo wali maamul goboleedyadii qaar la dumiyay qaar ciidamo la dulgeeyay ilaa hadda ku dhiban yihiin waxaad haystaan dawlad fiican ah la taageero waxaan u maleeyahay inaan warkayga sidaa u sheegay iyo sidaa u sheegay sidii kala duwan yihiin Soomaalidu ma taqaano waxa wuxuu yiri dhiki ilaa mugdi cawo maaha waa meelan aqoonay ayaa lagu maamaa mugdi cawo maaha waa meelan aqoon Soomaalidu runtaan ku sheegay waxa siyaasiyiin waa lagu leeyahay waxa waaye waa dad aan fikirkaysa siyaasaddu waa rusheegid isu dhawaasho isla jirid wax wada qabsi waa siyaasaddu laakiin siyaasaddu maaha in lees dhibo oo afarta beerijaalo YouTube balaalas ka caay ma aha wadanka wuxuu u baahan yahay dad raxiima oo isla shaqeeya oo jecel oo wanaagsan u baahan yahay anigu waxaad sheegaysaa haddaad ii sheegayso waa khaladaad dhacay waaye laakiin waxaan leenahay khaladaad ka dhacay miyaa meelo fadhiisayna markaasa leenahay khaladaadkaasaa dhacay oo saa la yeela manayna bas waxaan leenahay see looga gudbaa wixii dhacay ee wax fiican looga gudbaa waa maasanta aad